maalinta loo aasteeyay ololaha nadaafadda heer qaran oo ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde guud ahaanba dalka laga wada xuso 7 bishan Abriil oo maanta ku beegan ayaa maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda duulista iyo hawada ayaa waxay saaka ololaha nadaafadeed ka bilaabeen gudaha magaalada Burco waxaana inta badan indhuhu qabanayeen qashinka ay ururinayaan sidoo kale ardayda iskuulada waxaana si weyn uga dhex muuqday ururka bisha cas oo ka shaqeynayay nadaafadda goobaha iskuulada ku xayndaaban iyo goobaha xarumaha dawladda waxaana goobta ay ka socdeen ololaha nadaafadeed ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye maayir ku-xigeenka magaalada Burco iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada isduwaha wasaaradda duulista iyo hawada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkaas ka sii wadaysaan Burcana waxa leeyahay soo baxday maanta waxwal wasaarad wal dawladda hoose hay'ad kasto dawli maanta door weyn ka qaadatay halka ayayna kaga hadhine aynu joogtayno hawsha iyada nadaafadda aad iyo aad baan uga mahad celinaa sida ay uga qayb qaateen qaybtoodii ku aadanayd waa maalin dalka oo dhan nadaafadda runtii laga hirgeliyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gobolka Togdheer iyagoo isku duuban maamulka gobolka iyo degmada iyo dadweynaha reer Burco iyagoo isku duuban inay maalin maanta u soo baxeen inay nadaafadii ka shaqeeyaan ما أركيسان أنا برسال جامد وأنا وضعنا إنت عن وذكرنا أنا وقت في شغالة وسأرد وحبرشنا قبل كتبدر وحساكا لما شغالها يا ضيدة يا معلمين يا مامي براي وأنت فحيتين فيها أفهم هاي الواقع كسر si kastaba ha ahaatee ololaha nadaafad ayaa saaka si weyn looga dareemayay gudaha magaalada Burco Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto shabakada caalamiga ee Burco online gudaha magaalada Burco.